Assalaamu calaykum. Dal ay daashadeen dagaallo u kala hirdhoobay gobollo iyo deegaanno la daala dhacaya saboolnimo iyo aqoon darro dadkiisu ay gabeen sababna u noqday inuu ku jiro colaadan dhamaad lahayn deriskiisu ay beeliqaysteen magaciigu waa Cabdiraxmaan Maxamed halkanina waa Faatix Media ku soo dhawaada daawadayaal mowduuc ku saabsan Ukraine. Ukraine waa wadan ku yaala bariga Yurub waa dalka labaad ee ugu weyn Yurub kadib Ruushka oo xuduud la leh bari iyo waqooyi bari. Ukraine sidoo kale waxay xuduud la wadaagtaa Belarus dhanka waqooyi, Poland, Slovakia iyo Hungary dhanka galbeed, Romania iyo Moldova xagga koonfureed waxayna leedahay xeeb ku teedsan badda Azov iyo badda Madow. Badka Ukraine waa 600 kiiloomitir iskuweer oo ay ku nool yihiin ilaa 4 milyan oo qof. Caasimadda Ukraine iyo magaalada ugu weyn waa Kiev. Waxaa looga hadlaa Ukraine laba luuqadood, luuqadda Ukrainiyaanka iyo luuqadda Ruushka, laakiin si rasmi ah waxaa looga hadlaa luuqadda Ukrainiyaanka. Kacaankii Ruushka kadib waxaa dib u soo cusboonaatay dhaqdhaqaaq qaran oo Ukrainiyaan ah waxaana la sameeyay Jamhuuriyadda dadka Ukrainian sanadkii 1917. Dowladda muddada gaaban jirtay waxaa si qasab ah dib loogu dhisay Jamhuuriyaddii hanti-wadaagga Soofiyeedka ee Ukrainiya taasoo noqotay xubin aasaasi ah oo ka tirsan Midowga Soofiyeed ee 1922. Sanadkii 1939 galbeedka Ukraine ayaa lagu daray Poland. Ukraine waxay ahayd jamhuuriyaddii ugu dadka badan uguna warshadaysan kadib Ruushka. Ukraine dib markii ay xorriyaddeeda u heshay sanadkii 1991 iyadoo kala diridda ee Midowga Soofiyeed tan iyo markii ay xorriyadda heshay ayaa lagu maamulaa sidii jamhuuriyadda dhexe ka yar nidaam simi madaxweyne. Waxaa laftiisa ku dhawaaqay xaalad dhexdhexaad ah samaynta iskaashi ku koobneed ciidanka Ruushka iyo dalal kale halka sidoo kale samaynta iskaashi NATO ee 1994. dhacdooyinkaasi waxay keentay in Ruushku isku fidinta gobol ka tirsan Ukraine ayaa sii raadinaysa xiriir dhow dhaqaale siyaasadeed iyo ciidan gaar ahaan NATO iyadoo dagaal joogto ah kula jirta Ruushka. Si kastaba ha ahaatee Ukraine waxay ka mid tahay dalalka ugu saboolsan Yurub oo qaba musuqmaasuq baahsan sida ay kormeerayaal caalami ah sheegeen. Mowduucina maanta intaas ayuu ku eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.